beesha baara la yiraahdo waxay ka kooban tahay afar oday ka kooban tahay waxa curud u ah jufada ama lafta la yiraahdo saandheera barre ayaa mar walbaba ah hogaanka baare hogaanka shiidlana ah marka laga hadlayo dhanka saldanada iyo dhanka ugaasnimada aan ku horeeyo marka baaraha baare horta baar waxa loo yaqaanaa waa geedkan qumba murdaafka camal u baxo ama aad u taqaanaan qumba murdaafka waan dhahno waa geed baar ah oo dheer sida qumba murdaafka oo kale u baxo oo dheer oo marka maxuu ahaay laga saloogo ama laga sameeyo saladaha laga sameeyo dambiilaha laga sameeyo cawda laga sameeyo saliyada lagu dukado يعني هرباديها انت بدن صليادان هدا imaaday oo caadiga marka laga tago waxa jiri jirtay saliyo la saloogay oo baarkaas laga sameeyay geed baar al yiraahdo baaraha inta badan waxa lagu sheegaa wuxuu ahaa nin baaraha sida saxda ah xaqiiqda marka looga hadlaayo wuxuu ahaa nin eeylo ayuu ahaa oo soo carooday oo ugaarata ayuu ahaa waxa uu mar walbaba ugaarsan jiray sagaarada iyo ugaarta noocyadeeda kala duwan waayo xilligii hore ma aysan jirin wax la yiraahdo qori ama xabad ama baaruud lagu ugaarsado saas daraadeeda maadaama keligii oo ahaa ninkan baare waxa uu caado u ahayd geedkan baarka la yiraahdo inuu habeenkii koro maalintiina markuu soo ugaarsado geedka hoostiisa bushir ugu yaal habeenkiina baarkaas oo kori jiray gabadha lagu daray gabadhuu guursaday ilmaha baare oo cali iyo kabiir iyo saandheer ugu horeeyay meesha ku dhalay iyo sidoo u dhalay waa idin faahfaahin doonaa ha igu sugu waynina warbixinta ana soo wada degdeg jooji marka saas daraadeeda waxaan leenahay marka baarahaas maadaama uu maalintii soo ugaarsanay baarkaasna uu saarnaan jiray magaca marka waxa u bixisay naag oo xoolaaley ah ama oo maxuu ahaay iri jir ah ama loo jir ama xoolo jirtay oo iri aan ilaahdee oo iri ilaalinaysay oo asaga meeshaas ku soo aragtay nin baar fuula ayaan soo arkay marka kii baaraha la dhihi jiray marka ceelash iyo markaasi iyo ceelash agtooda u tagi jiray meesha ugaaranayo ugaartiisa iyo waxa meeshaas ku habaysan jiray baaraha taariifintiisa meeshaas aan ka baxno xaaskiisa oo naagta oo qabay ee lagu daray ee xoolaaleyda ahayd iyo sida oo xoolaha u helay iyo sida oo ilmahaasi u dhalayna si tartiiba ayaan u soo bandhigi doonaa halkan beesha baara la yiraahdo waxay ka kooban tahay afar oday ka kooban tahay waxa curud u ah jufada ama lafta la yiraahdo saandheera barre ayaa mar walbaba ah hogaanka baare hogaanka shiidlana ah marka laga hadlayo dhanka saldanada iyo dhanka ugaasnimada taasi waxay cadeynaysaa maadaama ninkan eeylo oo ugaaratada ahaa ee baare curudkiisii saandheera barrena oo maxuu ahaa asiga iyo xasan aan hormarine baare wuxuu dhalay afar wiil dhalay xasan kabiir cali yarow iyo saandheera barre saandheera baare ayaa ah marka saandheera barre waa liiraa laakiin saandheera baare ayaa ah curadka baaraha ayaa saas daraadeeda ayaga mar walbaba haayo marka hogaanka shiidlo ayaga mar walba haayo suldaanimada iyo saldanada waayo Axmed Rashiid Sheekh Shuceeb suldaankii beelaha lixda shiidlo Allah u naxariistay ayaa ka dhashay haddana waxa lagu bedelay wiilka Axmed Rashiid oo la yiraahdo Cabdiraxmaan Suldaan Axmed Rashiid oo ah marka saandheera barre kana ah baare kana maxuu ahay maxamuud gaas kana si ah maadla guuleed beesha baare ama odayga baare inta badan waxa uu soo aadaa maxamuud gaas iyo maalin gaasna waxay ka mid yihiin boqortooyadii oday gaas ugaar ee aan horay uga soo hadlay waxa waaye boqortooyada maalin gaasna waxa soo hoosgalaayo Dhilaale Maalin iyo Cabdalla Maalina soo hoosgalaayo Cabdalla Maalina dadaan ku sheegay Dhilaale Maalina dadaan ku sheegay maalin gaasa la iskugu iimaanaya marka sidoo kale beeshan baarana maxamuud gaas ay iimaanaysa waa boqortooyadii gaas ugaar meeshaas iimaanaysa kabiirkii ayuu meeshaas ka galay marka waxaan leenahay saandheera barre wuxuu dagaa kulmis weyne aan iraahday iyo wuxuu dagaa kulmis yaru ayuu dagaa saandheera barre inkastoo oo jawhar dago deegaano kalena uu dago laakiin inta badan saandheera barre waxa loo yimaadaa oo ka soo askumay kulmis weyno iyo maxuu ahaay iyo kulmis yare baarowna waa jirtaa baarahaas loogu magac daray sidoo kale xasan oo kamid ah oday baare waayo baare wuxuu dhalay afar oday oo dhalayaan dhahnay saandheera baare xasan cali yarow iyo kabiir afartaas oday marka saandheerna meeshuu dago waa sheegnay waa kulmis weyn iyo kulmis yarow
xasanna waxa uu degaa baarow iyo maandheer uu degaa cali yarowna wuxuu degaa bacadley sidoo kale waxaa jiro kabiir oo asagana dego damaley farbaraki yaaqle raqaylo cumar guudle iyo buur dheere oo dego sidoo kale kulmisna dega ayaa jira marka waxaan leenahay dhammaan reer baare waa rag isku abtirsanayo laakiin baaraha shiidle ma sheeganayo si fiiri baaraha odayga baare ee maxamuud gaas ugaar ah ma sheeganayo shiidlo tusaale markii aad aragto qof saandheere barre ah ama markaad aragto qof cali yarow ah wuxuu ku leeyahay yaa tahay markaad dhahdid wuxuu ku leeyahay ani shiidlaan ahay yaa ka tahay baare yaa ka tahay saandheere baare yaa ka sii tahay maxamuud gaas yaa ka tahay gaas ugaar meeshaas uu aadaa shiidlo wax la dhaha ma jiraan marka yacni oday shiidlo la yiraahdo oo lagu abtirsado sida eyladoo kale ama tusaale heejow oo kale 12 wiil ee heejow ama 13 wiil ee muuse heejow oo dhalay sida xasan arwaaq gumba arwaaq hebelow arwaaq loo dhahayo sidaas ayaga iskugu imaanayaan hebelow muuse heejow ma iskugu imaanayaan marka shiidlada sidaas ogaanaysaan odayga baarana halkaasaan kusoo ekeenayaa warbixintiisa aad iyo aad u mahadsantihiin